adaa koo filow jiitayaan dunida joogayni adigaa jidkii lagugu wadi jimiclaanede jahanabaa la geeyo haddaad aakhiru jahato nimankii janno kacay warbay jirini shalleeye afartaa geddaan odhan jiray iyo gololadaydii dhe garbadaan ka soo horin jiray godolna qaygii dhe madfac gaw yadhaahda iyo rasaas geninigteedii dhe gulaamo roob da-ahaya iyo gababaxdiisii dhe gululaciya maya laysku daray galangalkoodii dhe unka guguguclayn iyo hilaac galalacdiisii dhe gal xareed haddaad soo gabraday gal iyo duufaan dhe bad gariirtay mawjada gurxamay gacamadii ayldhe shir la gooyey waayeel gab yidhi garangartiisii dhe xariir lagu gimaamadahayo gole firaasheed dhe xaajada ninkii garanaya iyo gig iyo sheegeed dheh inuu halganka intaa la eg oo qayb yani ilaa beledweyne ilaa ayl ilaa haddii aanu galbari buur oo badda maakhirka hoos ah ilaa haddii aanu ku leeyahay afaafka burco ilaa qoraxay iyo haddii aanu tigsiga inta udhaxaysa inuu xukumo oo daraawiisha xukunta sidee ku dhacday ingiriiska ka jawaabay taas waxay yidhaahdeen idinku ubadaasaati maskii ku jiray ingiriis waa maska ah idinkuna ubadaasaati inuu ku jiro balsaan idin kala saaraya sheega nin ka mida waftigii oo dhalinyaraabaan bud la booday iyo isku burburiyey badiyo maskii de saas buu yidhi jisuhu saasa la isugu burburinaya buui haddii kalada iska saara bahalka wuxuu ahaa nin mujaahida oo xiniya caddaa oo gaala iyo cawaankeed wadanka ka hiray dhulkeenna ka hiray nin darwiisha oo haddii alla kuu roon yahay baan u sheegay gabagaasoo waxaan idhi nin haddii alla kuu roon yahay ingiriis aha arkado wuxuu yidhi waa gabay bahalnimo iyo aadamanimadu ku yartahay oo bahalnimo ka muuqato qof mayda in sidaas looga hadlaana sayidku waa ku qaldanaa waxayna muujinaysaa inuu ahaa haddii alla kuu roon yahay dhiigyacab ninkii darwiishka ahaa markaan intaa u sheegay wuxuu yidhi ma ku tiri adigu burco iyo beer maxaa ka soo doontay oo ku keenay kuma odhan baa idhi hal madow higaad iyo qur-aan ha iyo wow reeban hanadnimo iyo hooyaalo gabay heello iyo maanso nin kastaa naftiisa ha hafrehoodo anigaale bur kini adeegiisii markii la yidhi dhulka soomaalida inta badan xukun ingiriiska iyo talyaaniga usoo jeediyeen wuxuu yidhi haddii seefo iyo maare iyo sumuc la ii qaato cadaawuhu hadday igu soraan saqaranaareedda meeshiiyo sawaakimi haddii la iga seeraarsho sekadii cadmeediya haddii saaxil la igeeyo faranjiga la saayiro haddii la igu soo yaansho samci maayo sawdaan ahayn siinka looxa ah rabbaa deeqle roob baa qabow ruqa abaar baa le bad baa reen le aar baa ridamar horis faras baa le janna ruga raxmaan baa barya le raacis nebi baa le wardaa rogis le weli baa rila le rabid shareeca le run baa fiican been baa rafacan raran cadaab baa le rataa xoog le geel baa rukale ramad haleelaa leh waa jaadadka ugu adag ee gabayga la tiriyo nin adeega faranjiya amba awrtaba u qala amba arigaba u qala amba uba ilaala ah ama uurka kala jira ashahaado beeniyo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna ma ogolaana kama aqbali karo sayid maxamedna wuxuu lahaa dagaalkii nasaarada kiristanka dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaa dalka malihid anigaa ku idhi doora weynaha diintayda anigaan ku gadan dabaqi naareed anaa labada daro tan hore darajo mooday heerkaa iyo heeraabta intaa leeg buu taagnaa dhacdada koowaade waxay ahayd xeebta iyo dekeda berbera oo ninkii ingiriisiga joogay ama askartiisii ay sayidka weydiiyeen inuu cashuur bixiyo alaabtii uu watay oo xajka kala yimid markaasna uu yaabay oo yidhi adiga waxaad ku tidhaahdaa ninka ingiriis yaa adiga cashuur kaa qaaday markaad soo degtay markaan daraawiishta ahaa ayuu sayidku odhan jiray buu ihi anigu gacanta ilaahay baan ku jiraaye bal cidda igala baxda ayaan eegaya erigii baan xustigo markuu banaantii oo noo muuqan lahayd oo keenkii naga xigto uu gaarkii iga celiya meesha inaga celiya meesha in eriga xusuustay buu ninkani gabaygu wuxuu ahaa meeluu ereyga iskaga kala raseeyo ereyga ku jira iyo kaydka af soomaaliya ku jira ninkaa farihiisa
halkan aad ka dareemaysa wuxuu yiri inan suura aqal saari badan dadab la seen saabay 30 baaro saablay gingama sarabe cagaagta sali gogola saahood la shaday saaqatada qaaca sanifaad xariiriya baftiya khayl iyo suuti sangaburan soogaan darmaan salaba guudar la sidka ramada seeyay idii soobiriya ay rimay sarare weyn golsa kaban qalma surun suura markana wuxuu yiri dawa lagama helo gaal haddaa daawo dhigataane waa idin dagaaya kufriga aad u dabcaysaane dirhamku idin qubahayaa dib u go'aysaane marka hore dabku idin ka dhigi dumar sidiisii marka xigana daabaqada yu idin dareensiine marka xiga dalku idin ku oran duuyo dhaabsada marka xiga dushu idin ka rari sida dameeraade marsa hadaan dushii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degi gabayga taxdaas waxay ka mid tahay u dambeysay waxay ka mid ahayd gabayga la yiraahdo dardaaran ee uu sayidku ku dardaarmay waana gabayadiisa kuwii ugu dambeeyay midkood hadduusan ahaynba kii u dambeeyey taariikh ninka gumaysi la dagaalamay ku soo dulo cadowga ninkaas ma taariikhda ku geli karo taalla iyo xus iyo qiimeyn mudan laakiin gumaysiga uu adeegay oo dabadhiil fu ahaa oo kaba qaad u ahaa oo dalkiisa iyo dadkiisa ku burburinayay maxaa qiimo bulshada dhexdeeda ku leeyahay tima cadde wuxuu yiri sayidkii taleex degay markay turuntureynaysa hadday taabacaan maalintii tani ma joogteen buu oo gaalku inaguma maceeysteen